magaciisu waa Namruud bin Kush bin Ham bin Nuux waxaana awow saddexaad u ahaa Nabi Nuux calayhi salaam hooyadiina waxa la odhan jiray Qarnaabiil inkasta oo aanay ahayn hubaal la isku raacsan yahay haddana intii aan ninkan mahadhadiisa raadinayay waxa aan arkay qoraallo lagu sheegay inuu dhashay 2035 sane ka hor dhalashadii Nabi Ciise sida oo kalena waxa aan arkay qoraayo sheegaya 1881 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise inuu aasaasay dawladdii iyo boqortooyadii ugu horeysay ee ka hana qaaday carro adag waxaana uu boqor ka ahaa muddo 400 oo sano ah magaciisa waxa lagu sheegaa inuu afka kaldaaniyiinta ku noqonayay kii waarayay ee ka soo baxay dhulka webiyada iyada oo Ciraaq looga jeedo waxa kale oo la tibaaxaa inuu ka soo jeedo Tamarrud muddadii uu xilka hayay waxa uu ninkani ku guuleystay inuu caalamka oo idil ka taliyo waxaana uu sidaas ku noqday mid ka mid ah 4 nin ee dunida oo idil ka taliyay kuwaas oo laba ka mid ahi ay muslimiin ahaayeen lana kala odhan jiray Sulaymaan bin Daawud oo nabi ahaa iyo Dulqarnayn oo isaguna adoon wanaagsan ahaa halka ay labada gaalada ahina ay kala ahaayeen Namruud iyo Bukhuntusar maasoniyiinta waxa uu ninkani ugu jiraa kaalin muhiim ah waa tiir weyn oo ay ku faanaan waxaana ay rumaysan yihiin inuu yahay ninkii labaad ee taariikhda caalamka maasoni ahaa halka uu ninkii koobaadna uu yahay Tuyubaal Keen oo ahaa ninkii bilaabay ama ikhtiraacay samaynta macaadinta noolaana duufaantii Nabi Nuux ka hor waxaana uu sidaas Namruud ku noqonayaa sida ay aaminsan yihiin ninkii koobaad ee duufaanta dabadii noqday maasoni ama jidkoodii haya waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu xasuusto xukunkii Namruud waxa ka mid ahaa inuu ahaa ninkii ugu horeeyay ee taajka boqorada madaxiisa saartay waxa kale oo uu ahaa ninka jideeyay habkan federaalka ah ee maanta caalamka ka jira oo waxa uu xilligiisii hirgeliyay in gobol kasta uu boqor gaar ah iyo dawlad hoosaad awood kooban leh ay ka taliso maamuladaas oo hoos imaanayay xukunkiisa iyo boqortooyadiisa waxa kale oo aad looga xasuusanayaa inuu yahay ninkii aasaasay ama dhidbada u taagay magaalada Baabil oo door weyn ku lahayd taariikhda caalamka iyo ilmahnimada basharka magaceeda Baabil waxa uu la ujeedo yahay Baabullaahi waxana ay ahayd bendar dadka ku dhaqani ay ilbax yihiin sidoo kalena saldhig ayay Baabil u ahayd culimadii waqtigaas ugu aqoonta badnayd waana meesha ay ku soo degeen labadii malag ee Haaruut iyo Maaruut kuwaas oo dadka sixirka barayay Baabil waxa kale oo ay ahayd meesha waqtigaas koobka u qaaday cilmiga xidigiska iyo kanfaalka waxa aad loo xasuustaa in ay reer Baabil saadaaliyeen dhalashadii Nabi Ibraahim iyo tii Nabi Ciise calayhi salaam daawade adiga oo aan meel fogba ka doonin Soomaalideennii hore ayaa kolka uu ninku wiilal badan dhalo geel badanna uu yeesho waa uu kibri jiray waxaana wali xasuusta waayeelkeena ku jirta ninkii dhalinyarada ahaa ee geeloodu inta uu kunka halaad gaadhay ragga badanna la dhashay aabihiina uu ahaa hogaamiyaha beeshooda kaas oo ku hodmay nimcooyinkii uu Ilaahay siiyay isla weynina ka qaaday oo inta uu qab iyo kibir gafuurka la taagay ismooday in aanu basharba ahayn ee uu yahay rabbi yar oo soo koraya waana kii lahaa isagoo ciyaarta ka heesaya aabbo kaslow kadifa bilaadanka dhaafay ma Ilaahay baan noqon subhanallah haddaba haddii uu wiilkaas geel jira ahay sida uu fakarayay maxay kula tahay in uu aamini lahaa ninka 400 ee sano boqorka ahaa waliba awood iyo hanti fara badan haysay kaas oo ku guuleysay in uu caalamka idilhaantiiba ka taliyo dabcan isna waa uu kibray oo waxaba uu ismooday rabbi in uu yahay waxana uu noqonayaa sooyaalka dunida ninkii ugu horeeyay ee ilaahnimo sheegta sida ay soo warinayaan culimada taariikhdu waxa uu Namruud ka riyooday riyo aad u xun waxana uu arkay xidig samada ka soo dhacaysa taas oo ilayskeedii weynaa uu qariyay ama uu shiiqiyay iftiinkii cadaalada markii loo fariisayna waxa loogu sheegay inuu dhalan doono wiilka xukunkiisa baabiin doona kadibna waxa uu ciidankiisii amray in la laayo dhammaanba wiilasha sanadkaas dhalanaya Ilaahay sama qorin in la dilo Nabi Ibraahim oo ka mid ahaa inamadii sanadkaas dhashay waxaana uu ku barbaaray kuna koray dhulkii uu Namruud ka talin jiray Namruud waxa uu dadkii ka xidhay cuntadii oo muddadiiba hal maalin ayaa uu raashinka u qaybin jiray maalintaasna intuu dadka saf geliyo ayaa uu qof kasta ku amri jiray in uu u sujuudo haddaba maalin ka mid ah ayaamahaas uu Namruud talinayay ayaa waxa safkii soo galay Nabi Ibraahim oo cunto qoyskiisa u doonaya waxa uu Namruud faray in uu sida dadku kale ay sameynayaan oo kale uu sameeyo oo uu u sujuudo si uu isaguna u irsaaqo oo uu raashinka u siiyo Ibraahimna ganafka ayaa uu ku dhuftay amarkiisii oo waa uu ka diiday markii uu Namruud sababta weydiiyayna waxa uu Ibraahim u sheegay in aanu isagu ilaah ahayn Namruud oo carooday
ayaa weydiiyey ibraahim ilaahiisu ka uu yahay, waxaana uu u sheegay inuu yahay kan wax dila waxna nooleeya. isaga oo isku bogay ayaa uu namruud yidhi amba waxa aan ahay ilaah waxna dila waxna nooleeya. oo inta uu laba maxbuus soo qabtay ayaa uu midna sii daayay kii kalena dilay, waxaana uu ku dooday inuu midna nooleysiiyey kii kalena uu dilay. ibraahim ayaa doodii ku soo noqday oo waxa uu ku yidhi namruud, aniga ilaahaygu waa ka cadceedda bariga ka soo saara aroortii, bal adigu haddii aad rabbi tahay qoraxda galbeedka ka soo saar. xujadaas weyn ee caqligalka ahi waa ay fashilisay namruud. inta uu cadhooday ayaa uu degdeg dibadda ibraahim ugu saaray. daawada waxaa jira kala duwanaansho xagga taariikhda ah oo culimmada qaar ka mid ah ayaa sheegay in boqorkii ibraahim gubay uu ahaa mid haystay gobol namruud hoos yimaada. kadibna markii uu halaskii kasoo dhex baxay ibraahim oo nooli, warkiisiina uu meel kasta gaadhay, gaar ahaanna uu namruud ka war helay, ayaa uu u yeedhay oo uu qasrigiisii ku casuumay. markii uu u yimina waxa uu weydiiyey ilaahiisu ka uu yahay. kadibna waxaa dhex martay qisada xagga sare aynu kusoo marnay. si kastaba ha ahaatee waxa laysku waafaqsan yahay in ay kulmeen namruud iyo ibraahim. namruud waxa uu ahaa ninkii ugu horreeyey ee isku dayey inuu duulo, waana uu ku guulaystay. oo sida la sheegay waxa uu damcay inuu ka war doono lana soo dagaalamo ilaaha uu ibraahim samada ku sheegay. waxa uu soo ururiyey shimbiro waaweyn oo gorgorro ah. kadibna inta uu sanduuq samaystay ayaa uu dhex galay, waxaana uu gacanyarihiisii ku amray in uu ul dheer madaxa sare hilib kaga xidho, uuna ka dul taago sanduuqa. gorgorradii mid kasta kor ayaa uu u duulay si uu hilibka usoo qabsado. ayaan darrase xadhkahooda oo gaabnaa awgood ma aysan gaadhin hilibkii, kamase ay niyad jabin oo saray u buubeen. mid kastana waxa uu ku fakarayay inuu hilibka soo laalaada soo halabsado. shimbiraha ama haadda oo ahaa kuwa awood badani waxa ay la duuleen sanduuqii uu namruud ku jiray, waxaana la sheegaa markii ay jawi aad u sarreeyo gaadheen, dhulkiina uu ka qarsoomay oo uu baaba'ay, ayna isku eekaadeen samadii iyo arladii ay ka yimaadeen, inuu namruud madaxa sanduuqii kala soo baxay, waxaana uu cirka ku ganay fallaadho uu sitay, isaga oo itaalbaaska isla ilaaha ibraahim dil. waxaase mucjiso kale noqotay in ay dib u soo noqdeen fallaadhihii oo dhiig leh. namruud oo isla dagaalkii ku guulaysatay ayaa gacanyarihiisii ku amray inuu qorigii dheeraa hoos u laalaadiyo. kadibna haaddii ayaa iyaguna hoos usoo duulay si ay cadka usoo qabsadaan iyaga oo kala boobaya, waxaana ay xeeladaasi u saamaxday in ay dib dhulka ugu soo degaan. sida oo kalena namruud waa ninkii dhisay saraha dhaadheer ee baabil si uu ilaahay u gaadho, waana kii ilaahay sarihii dhaadheeraa dhulka la gooyey. boqor ka mid ahaa dadkii rumeeyey nebi ibraahim ayaa namruud usoo bandhigay inuu islaamo, isagiina waa uu diiday. mar labaad ayuu haddana usoo bandhigay, si la mid ah sidii hore ayaa uu namruud u diiday. waxaana ay ku ballameen in ay dagaal ku kala baxaan oo mid kasta uu ciidankiisa soo urursado. namruud oo wata col cadadkooda uu eebba un garanayo ayaa isa soo dultubay ciidan yar oo uu horkacayo boqorkii muslimka ahaa. waxaana mar keliya soo degtay kaneeco yaab badan oo inta ay ku degtay ciidankii namruud ayaa ay hilbahoodii cuntay oo xataa lafahoodii burbursatay. waxa kale oo cajiib ahaa in xabad kaneeco ahi ay sanka ka gashay boqorkii kibirka badnaa, kadibna maskaxdiisii iyo guud ahaan madaxiisii cuntay oo hadba meel ka qaniintay. namruud dibtii ay xabaddaas kaneecada ahi ku haysay inta uu u adkaysan waayey ayaa uu dadkii ku dhowaa ku amray in ay madaxa kab kala dhacaan si uu waxoogaa yar u nafiso. sannado dhowr ah oo uu sidaa u sulcayay kadib aakhirka waxa uu u geeriyooday xabaddii kaneecada ahayd. waxaana ay qisadani tahay mid mudan in lagu cibro qaato oo ina tusaysa cirib dambeedka qof kasta oo kibir badan, iyo weliba halkii foosha xumayd ee uu ku dambeeyey ninkii iskuba haysayba in uu yahay ilaah waxna dila waxna nooleeya.